بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا مقعد بيها علي الشيخ أحمد. كان ميدا برياشة وحكر دقة جامعة دالك. بريهن وجودن بيسوي حسوي بحيسي باهذا الله قبو إن أرضي دمركي سكندري كصوب بحان لسيو طلب بحم قصة بسن كليتها أي قادنيان. إنه جو تأكد دولينا. وحين ما أنت كليب كان أدوبينا إنه أرضي ذا فاهين ديرادا كسينو كلية public administration ka iyo faa'iidada ay u leedahay dalka iyo dadka iyo dhalinyarta doonaya inay bartaanba. Kuliyadani waa kuliyad kamida kuliyadaha ugu waxtarka badan la caalamka. Waa kuliyad in badan jirtay, waa aqoon in badan jirtay, waa aqoon lagu barto maamulka dawladda. Waxa tusaale inoogu filan dalka Mareykanka waa maadooyinka uu quwadda inta badan saaro. taariikh ahaan hadaynu yara eegno maadadan waa maado kamida maadooyinka jaamacadaha lagu dhigto waxa lagu diyaariyaa shahaadooyinka kala duwan ha noqoto degree diploma certificates ila PhD maadadani waxay soo jirtaba waxa muhiimad gaar ah siiyay oo research badan ka qabtay mid kamida madaxweynayaashii dalka Mareykanka soo maray waqtigii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunka madaxweynahaasi wuxuu ogaaday baahida loo qabo aqoontan gaar ahaan in la horumariyo nidaamka dawladnimo waa maado ku saabsan sharciga waa maado xiriir ka dhaxaysiinaysa sharciga iyo shaqooyinka ay dawladdu leedahay ha noqoto dastuurka ama sharciyada kale ee ka farcama waxa lagu bartaa maamul wanaaga waxa lagu bartaa hogaaminta wanaagsan waxa lagu bartaa sida adeeg hufan loogu qabto dalka iyo dadkaba waxa lagu bartaa sida loola xisaabtamo dhammaan entitieska dawladda oo dhan waxa lagu bartaa sida baarlamaanku uu la xisaabtamo madaxweynaha waxa lagu bartaa sida madaxweynuhu la xisaabtamo wasiirada uu magacoodo waxa lagu bartaa sida ay wasiiradu ula xisaabtamaan maamulka iyaga ka hooseeya ilaa laga gaadhayo shaqaale hoosaadka waxay ku saabsan tahay maadadani oo faa'iidooyinkeeda kamida in ay aqoonta ay huwan tahay ay tahay ta ay dawladdu ku shaqeyso kuna horumarto waxa u baahan inta badan oo barta maamulka sare ee dawladda iyo dhammaan organizationska kale sida international organizationka UN ta noqoto ama other humanitarian organizations kala ha noqotee waxay uga baahan yihiin maamulka sare inay bartaan sida policy-ga loo sameeyo ama balance siyaasad loo sameeyo iyo qorshe sida organizationskooda ama hay'adaha ay ka shaqeeyaan dawli ha ahaadaan ama humanitarian ay ugu sameeyaan waxa u baahan maamulka dhexe iyo maamul hoosaadiyadaba waxay uga baahan yihiin siyaasadda iyo qorshayaasha la dejiyay sidii ay u fulin lahaayeen ayaa lagu bartaa maadadan oo ay uga baahan yihiin maamulka dhexe ka hoose iyo shaqaale hoosaadkuba ardaygu marka uu diyaariyo degree-ga koowaad ama diploma waxa uu fursad u haystaa inuu ka shaqeeyo meelo badan wuxuu ka shaqeyn karaa dawladda wuxuu ka shaqeyn karaa private-ka wuxuu ka shaqeyn karaa hay'adaha caalamiga sida UN-ta iyo hay'adaha kale caalamiga waa maado aad u ballaaran maadaama aynu dalnahay soo koraya gaar ahaan dhinaca public ama danta guud waa maado aynu aad ugu baahanahay oo dhalinyarteenu ay tahay inay bartaan muhiimna u ah horumarka dalka ardaygu marka uu dhigto degree-ga koowaad wuxuu fursad u haystaa inuu ka diyaariyo master ama PhD ba fiilal badan waxaa kamid ah fiilalka economiga
waxaa ka mid ah businesska, waxaa ka mid ah kulliyadaha sharciyada ama kulliyadda lowga. waa maado uu aad dalkeenu ugu baahan yahay. waxaan kula talin lahaa ardayda ka baxaysa secondary-ga, mar haddii uu dalku u baahan yahay horumar, dalku halkuu horumar ka gaari karaana ay tahay in systemka dowladnimo la dhiso ama haykalka dowladnimo. taasina ay u baahan tahay dad aqoonteedii leh, inay muhiim tahay inay ardaydu bartaan kulliyadda public administration-ka. waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.